gabar u dhalatay waddanka Taiwan ayaa waxaa isheeda laga soo saaray 4 xabo oo shinni ah kadib qaliin lagu sameeyay. Qaliinka oo ay hormuud ka ahaayeen dhaqaatiirta isbitaalka jaamacadda Foyen ee koonfurta Taiwan ayaa lagu helay shinnidan oo nuuceedu ahaa mid malabka soo saarta. Dr. Hong Jai Teng oo ka mid ahaa dhaqaatiirta qaliinka gashay ayaa BBC-da u sheegay inay ahayd shaqadu mid naxdin wadata. Waxaa la yaab ku ahaa in ay weli nooshahay shinnidu sida dhakhtarku sheegayna loo diray urur baaris cilmiyeed ku sameeya. Waxa uu ku tilmaamay Miss He mid nasiib badan maadaama aysan marmarin isha muddadii ay shinnidu ku dhex noolayd. Isaga oo ka sheekeynayay qaabka qaliinku u dhacay ayuu xusay inay arkeen walax madow oo u eg lugta cayayaanka kadib markii ay weynayso ku eegeen. Ka gadaal markii ay si kaadsiimo leh u soo jiideen ay arkeen lug kale mid kale ilaa ugu dambeyntii ay ka soo bixiyaan 4 xabo oo shinni ah oo weliba nool. Gabadhan 28 jirka ah oo la hadashay warbaahinta ayaa sheegtay in ay ka qayb qaadanaysay kulan baroor diiq ah oo sanadkiiba mar la qabto kaas oo loogu baroorto dadka la jeclaa ee geeriyooday. Kolkii ay guriga dib ugu laabatayna ay xanuun iyo bararba ka dareentay mid ka mid ah labadeeda indhood. Intaasi kadib ayay xustay inay soo booqatay isbitaalka kaas oo laga soo saaray 4 xabo oo shinni ah oo nool. Dhaqaatiirta ayaa rumaysan in shinnidu quudanaysay ilinta gabadha markii uu shilku dhacayay. Waxaase isweydiintu tahay ilinta gabadhu miyay macaaneed maadaama shinnidu ahayd tan malabka soo saarta. Saadiya Nuur, dalka TV.